dhaqaanka iyo difaaca aad dadkiina iyo dalkiina u soo jeedaan waan ka warqabay maalmahan inaad ku jirteen howlgal aad Buula Xaaji iyo ku tagteen waad socoteen waxaan isleeyahay maanta dadkoo dhan lagama wada heli karayo waxaad qabanaysaan iyo waxaad ku safraysaan iyo dareenkiina aad cabiraysaan iyo waxaad ka shaqaynaysaan waa wax dadkiina iyo dalkiina idinka ay idin sugayaan idinku jiifaan wasaaka amniga dadku ay haystaan iyo kuwa xooluhu ka dhamaadeen inay dadku deegaanada idiin soo degaan soo jeedkiina iyo idinka waxqabadkiina wax badan saamaynteeda ay lu kuleedahay aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxaan leeyahay shaqo fiican baad qabateen idinka iyo mas-uuliyiintiina taliyaha ciidanka guud iyo taliyaha guutada oo nala jooga oo in labaduba ay ahayn dadkii shaqadan iyo qaybta weyn ku lahaa waxaana sugayaa waxaa la yidhaahdaa maamaha ciidanku leeyahay oo ah difaaca midka ugu fiican waa weerar inaan hadda difaac badan ku jiro oo la joogo oo la fadhiyo inta weerarka inaga soo gaaraysaa ka yaraanaysa inta difaaca naga soo gaaraysa taa macnaheedu wuxuu noqonayaa waxaan rabnaa inaan u diyaargaroon inaan dhaqdhaqaaq samayno deegaanadeenna aan isu furo dadkeennu ay helaan si xorriyada oo madax bannaan inay meeshay rabaanna u socdaan deegaankay rabaanna ay tagaan haddii ilaahayna taasoo macnaheedu uu yahay howlgalkan inuu noqonayo howlgal dhab ah oo aan bilaabayno oo in badanba waxaan ka hadalnay howlgal laakiin maanta aan ku talagelayno inaan isku tashanno sababtoo Soomaalidu waxay tiraa cidna uma maqna ceello uma fadna innaga iyo ciidanka idinla degeniya ku walaalaheen amisoomta inala shaqaynaya dagaalkeena gula jira inaan howlgal aan leenahay aan ku talagalno haddii ilaahay idhaa marka ugu dambaysana hadday noqoto xataa keliyan inaan howlgalno haddii ilaahay idhaa waa innagu deegaanada naga maqan caasimaddii ay ka mid tahay dhulkii baa gacanta ka maqan waxaa go-aanka dhow yahay inaan isku tashanno haddii ilaahay idhaahdo sida ugu dhaqsaha badanna howlgal aan isugu diyaarin dhufayska intaan ku jirro intayna soo gaadhahay kollaba inama soo gaaraysa haddayna howlgalno taa marka waxaan idinku imid oo maantana si ugu yeelataan idinku ugu horeysaan inaan rabo inaan idiin sheego waajibaad howlgal ah oo aan hadal ahayn inaan gelayna haddii ilaahay idhaahdo qof walbana uu diyaargaroobo deegaanadaan tegayna iyo sida loo howlgelayo iyo nooca wax loo qabanayo iyo dalkeenna iyo dadkeenna sida waxqabadkiisa uu noqonayo haddii ilaahay idhaahdo waxaan in badan isku taxallujinayno sugaynay in bal dowladda federaalka iyo amisom iyo international community war dagaalkan sii afdheeraaday ee sii daba dheeraaday ee jiitamayay intaa in leeg inuuna lagu gaadhin aan howlgal samayno 4 sana waxaan ku jiraa waxaa la yidhaha Jubba corridor jubbada dhexe sida loo xoreynayo iyo deegaanada la qabanayo socodkiina wuxuu noqday mid aan sar iyo raatoona lahayn kalaam hadal sheegayaa u batay laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu inaan ciddana raacaysa way naga daba iman doontaa haddii ilaahay ciddana raacaysay iyada ay naga daba iman doonta waa deegaankeenni soo maa waa dalkeenni soo maa cid kale wax ka sugaynaa war cid kale aan sugaynaa annagaa isku tashanayna insha allah taasaan rabaa marka inaad saa u qaadataa waan idin soo gaaray maanta inta badan waan idinla joogaynaa duruufaha iyo waxaas de waad ku samrayseen wax badan oo idin soo maray laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu inaan mar kasta oo deegaanadeenna iyo isufuraanshaheena iyo socodkeennu jiro nolosheenna iyo dhaqaalaha iyo ciidankeenna iyo waxalba sii wanaagsanaa iyo shacabkeenna saaxada inoo yeedhay shacabkeenni baa inoo yeedhaya meelo maanta aad Buula Xaaji iyaa tagteen maalin dhaweyd Badhaadhiyaa la tegayey dadka waad arkaysaan qaylada waxa ka yeedhay laan xageed nooga tegaysaan iyaa lanaga tegey ma ka tegi doonno waan tegi doonnaa deegaanada waanan joogi doonnaa aad baad u mahadsantihiin insha allahu waan kulmi doonnaa saraakiisha wixii waajibaadana iyagaan kala qaadanayna